هذا مقشان مستقبلكم ودنيردان دنيردا ujeedaan waa mustaqbalka kubadda cagta waa la ciyaaraa kooxo kala duwan ciyaara oo ilaa 25 kooxood xiriir ku leeyahay tirada hadda ku jirta diiwaangelinta oo ciyaartana waa dad kor u dhaafay ilaa 800 way ciyaartooyda waaweynta ciyaara maxay tahay su'aasha oo la isweydiinaa waxay tahay muxuu iskuulka waqti u bixinayaa maxay xiriirsan kubadda cagta waqti u bixinayaa su'aal mudan waa in la isweydiiyo dhalinyarada saa ogtiin waxba bartaan xiriirka kubadda cagta waxa muhiim u ah horta ninaan wax baranin inuu asna wax barin waa muhiim waa taas waxa priority koowaad arday u leh cunuga kow inuu wax barto taas horta aan priority koowaad taas waa mid anaga muhiimad siinayna in la ciyaaro waxa ka horeysa in cunuga wax la baro in akhlaaqdiisa la dhiso waxna la baro kaas oo waxna la baray akhlaaqdiisana la dhisay ayaa kubadda ciyaari kara taas aan rumaysanahay ninkan akhlaaqdiisa la isnaan waxna baran waa adag tahay in kubadda la baro haddii kubadda la barana wuxuu imaanayaa ciyaartoy akhlaaq daran oo imaanaya laakiin markii intaas uu soo maro wuxuu noqonayaa qof oo aqoontiina ka dhisan akhlaaqdiina ka dhisan kubaddiina ka dhisan noqonaya maanta marka waxaa micnaha nasiib u yeelateen 12 iskuul barnaamij aan soo wadnay muddo hal sano ah ayaa maanta waxaan u samaynaynaa iftitaax u samaynaynaa hal sano aan soo wadnay saala socotaan sanadkii aan soo dhaafnay bishiisii labaad 2015 ayaan bilownay inaan iskuullada booqano oo micnaha la sameeyo micnaha diiwaangelin la sameeyo waxaa la socotiin in iskuul kastaba ay maanta ka diiwaan gashan yihiin 40 carruur ay ka diiwaan gashan yihiin oo isugu jira da'da 9 jir ilaa ay u dhaxay 14 sano inta u dhaxayso aad diiwaan gashan waan u kala qaadnay laba qaybood oo qayb kastaba sidii u wada ciyaari karaan aan qorshahooda iyo nidaamkooda u sameeyno waxaan ka soo gudubnay marka saala socotaan diiwaangelintii oo aad kulligeen marqaati ka wadatiin maamulada iskuulka oo aan aad idinka mahad celinayno sida aad noo soo dhaweyseen iyo qaabka aad noola fududeyseen waan idinka mahad celinayno diiwaangelinta haddii laga yimid marka maxaa ku xiga maanta garoonkii weynaa dhex joognaa banaadir dadkan maanta waxaan rabnaa inay xasuus u noqoto mustaqbalka ayagoo garoonkan ka ciyaara in la